السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنينا واقيبتي شنية لبعضتناد يتحنهن أين مدبع كسو دحجرني أسكريكي كوبانكا أها إساقو أوقيساد هالكي إنوك سيوذا وهالكي أينو مريسي قيبتي أفري لبعضتناد وحاوكو بلابا يا قيبتن شنية لبعضتناد سيدن وحا أنك فكري دور الريموت مركا لغا ريبو أرنكي دعي أما وحي آخر كي دعي مسكح ذيدو وحي أهيد متفهمي كاريلا وحان دعيا iyo sida xaalku noqon doono maan lahayn hal abuur maskaxeed oo aan ku cabiri karo waxa dhacaya sida ay yihiin kaliya waan iska yaabanaa anigu maan arkin ee waxa meesha yimid wafdi ka socda hay'adda Laanqeyrta Cas waxaan u maleeyay oo aan ku fikiray malaha waxa laga yaabaa oo lagu bedelayaa xabsiga oo mid kale ayaa lagu bedeli doonaa taasi waxa ay ahaan lahayd wax aad u xun dabcan kalgacal gaar ah uma hayn xabsigan laanta buur balse in mid kale la ii sii bedelaa waxa ay igu ahaan lahayd wax aad u xun inta aad la qabsanayso waxa aad kala kulmi doonto iyo sida uu noqon doono xaaladdu ayaanad garanayn ilaan waa meel cusub oo lagu bedelay waxa aan ka baqayay xabsi kale in uu noqon doono mid leh idbin adag oo ka weyn kan aan ku suganahay oo aan u malaynayo in uu dhaamo kuwa kale oo badan oo dunida ah xabsiga laanta buur weli kumaan arag goob loogu talagalay jirdilka iyo idbinta maxaabiista marka laga reebo goob si gaar ah loogu baari jiray kuwa dambiyada xabsiga ku dhexgala mooyee haddii mas'uuliyiinta xabsigu ay danaynayaan in ay iga bedelaan xabsigayga kuma qasbana in ay ku mashquulaan fiiro gaar ah si ay u dibciyaan cadhadayda maalmahaas igamay joojin in ay ii ogolaadaan in aan subax walba 20 daqiiqadood u baxo barxadda xabsiga si aan u jimicsado sidoo kale waxaabay keeneen dhakhtar dhab ah oo xitaa si ku meel gaadh ah u hagaajiyay tayada cuntada ma aqaano in ay hay'adda Laanqeyrta Cas iyo dalalka kale ee adduunka ee qadiyada maxaabiista danaynayay in ay iska ilaalinayeen oo ay waji kale tusayeen iyo in kale waxaan xasuustaa in maalmahaasi ay cuntada tayadeeda noo wanaajiyeen oo aanu helnay cunto habboon sidoo kale jimicsigii 20 daqiiqo ahaa ee aan heli jiray subax walba sidiisii ayuu ahaa weli halkii baan fadhiyaa oo waxa igu hareeraysan ilaaladii xabsiga dhinaca xafiiska maamulka waxa ku jira oo shir uga socda saraakiil aan isidhi waxay ka socdaan gudida caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas iyo mas'uuliyiinta xabsiga oo ay sidoo kale weheliyaan saraakiil sare oo dawladda Soomaaliya ah gaar ahaan dhinacyada sirdoonka militariga iyo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo gudaha niyadda waxa aan iska lahaa ma aha sidii aad moodaysay markii hore waxa laga yaabaa in ay tahay xaaladaada in laga gelayo shir weyn balse waxaan fahmi waayay sababta ay aniga iiga soo saareen qolkaygii xabsiga ee ay halkan ii keeneen waxa kale oo aan fahmi waayay sababta ay halkan iigu hayaan ee ay iigu ogolaan waayeen in aan shirka xafiiska ka socda qayb ka noqdo weli meel dhexe ayaa la igu hayaa xafiiskiina shir baa ka socda qolkaygii xabsigana waa la iga soo saaray waxa aan isidhi oo aan isweydiiyey waxa laga yaabaa in marka ay wada hadlaan ay adigana ku yeedhayaan weli se ma arkayo cid ii soo socota waxa ay igu ahaayeen saacado dhaadheer oo maskaxdayda aan mashquul geliyey muddo 2 saacadood ah kadib waxa halkii iigu yimid askari kale oo askartii ilaalada ahayd ku wargeliyey in la iga doonayo dhinaca xafiiska gaar ahaan qol kale oo aan ahayn ku aan hore u arkay goobta ay wada joogeen dadkii shirka galay ayaa la i keenay waxa aan ku fadhiistay kursi gaar ah waxa su'aalo i weydiiyey mid ka mid ah kuwan aan u maleeyay inay yihiin mas'uuliyiinta ka tirsan gudida Laanqeyrta Cas waxa uu u muuqday mid faraxsan haddii aanu iska yeelyeelin niyad ahaan sidaasi si degan ayaan neef culus u qaatay oo moraal ahaan waxa aan is idhi waxaad gelaysaa xaalad wanaagsan waan isdejiyey waxaanan ka wada jawaabayay su'aalo ay i weydiinayeen waxa su'aalaha igu boobtay haweeney ka mid ahaa kuwan wafdiga iyo nin kale oo la socday waxa aan joojiyey in aan u fikiro si xun oo ah tusaale ahaan in ay wax xumi isugayaan waxaanan rajeeyey in aan wax wanaagsan maanta la kulmayo haweeneydii waxa igu tidhi sidee tahay waxa aan ku idhi aad ayaan u wanaagsanahay waanad mahadsan tahay waxa igu tidhi ka waran xabsiga sidee lagula dhaqmaa waxa aan u sheegay in aanan wax dhib ah
oo weyn qabin marka laga tago xaaladaha nadaafadda cuntada iyo waqtiyada qaar cayayaanka badan ee kaneecadu ka mid ka tahay markii aan intaa ku idhi waxaan dareemayey in aanay saraakiisha Soomaalidu jeclaysanayn cabashada kooban ee aan qadimay waxaanse u xaqiijiyey in aanan wax jirdil ah iyo dhibaato kale toona aanan qabin oo ay si wanaagsan ila dhaqmeen ku dhawaad ilaa imika sanado badan aan halkan ku xidhnahay waxa ay igu tidhi waad u fasaxan tahay in aad faalla kasta oo naqdin ah bixiso waanad u madax bannaan tahay in aad wax kasta oo aad tabayso ama aragtay muddadii aad halkan ku xidhnayd noo sheegto adiga oo aan waxba dareemin in culays dambe lagu saarayo waxa aan ku idhi wixii aan hayeyba waan kuu sheegay wax cusub oo aan sheegana imika ma hayo si degan oo ixtiraam leh ayaan dhammaantayo u wada hadlaynay oo aanu habi u ahayn waxa ay saraakiisha dowladda Soomaaliyeed sheegeen in wax kasta oo karaankooda ah ay isiiyeen iina ogolaadeen imikana aanay jirin wax ku khasbaya in ay dhibaato kale ii geystaan sarkaalka ugu sarreeyay kooxdan saraakiisha Soomaalida iyo taliyaha xabsigu waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in uu ka run sheegay sida loola dhaqmay wixii kale ee uu ka cawdayna uu la qabo maxaabiista kale ee xabsiga ku sugan Soomaali iyo ajaaniba gabadhii ayaa hadalka ku soo laabatay oo waxa ay igu tidhi waxaan ogaaday in aad xanuunsatay imikana xanuunsan tahay balse aad imika sidii dhaanto muxuu ahaa waxa kugu dhacay waxa aan u sheegay in ay duumo ama cudurka kaneecadu igu dhacay waxaan ka mid ahaa maxaabiis ku xanuunsatay xabsigan oo uu ku dhacay cudurka duumadu waxaanse imika dareemayaa in aan ka soo kabtay 2 jeer ayuu igu soo noqday xanuunkaasi ayaan ku idhi waxa igu tidhi ma lagu keenay dhakhtar waxaanan u sheegay in ay ii keeneen daawona ay isiiyeen intaasi ayaan si degan isu weydaarsanay iyada oo ay dhammaanba dhinacyadii kalena dhagaysanayaan waraysiga mas'uulkan ACRC ka socday na dhex maraya inkasta oo rabitaankaygu mar walba igu kalifayay in aan siiyo jawaabo wanaagsan haddana marmar waxaan doonayay in aan wax walba soo faqo oo aan dib sheegan karo waxaan isweydiiyaa maxaa kugu kalifaya inaad isku kiciso mucaaradad kugu ridi karta god cusub oo kale oo dhib badan hase yeeshee waxaan ku dhiiriday in aan caddeeyo wax walba oo aan halkan kala kulmay waxaan moodayay inay culays kasta oo aan sheegto iga qaadi karto balse waan ogahay in ay saacado kadibba iga tegayaan oo aanu isku soo harayno maamulka iyo ilaalada xabsiga sidaas darteed maxaa igu kalifaya in aan lumiyo fursadahan yar ee aan haysto ee ugu yaraan saaxiibtinimada ah waxa aan u sheegay in dhakhtarkii ay ii keeneen markii aan bukooday daawooyinka uu ii qoray qaarkood in aanan weli helin oo aanay ii keenin aad bay arrinkaa uga xumaadeen wafdiga ACRC waanay qoranayeen wax kasta oo aan idhaahdo cawaale ayuu taliyaha xabsigu weydiiyey sababta ay iiga habsaantay daawada dhakhtarku ii qoray waxaanu cawaale sheegay in ay soo socoto oo aanay weli xabsiga soo gaadhin ee ay filayaan dhowaan in aan heli doono dawooyinkaasi dhammaantood waxaan ku idhi daawo ii soo socotaa maxay ii taraysaa waanigan imika bogsaday intaasi ayaa qodobkaasi lagaga gudbay aan tagno Muqdisho ayay yidhaahdeen yaa Muqdisho maxaan ka samaynaynaa caasimadda Soomaaliya ayaan weydiiyey cidi iima jawaabin waxaan arkay in ay la yaabeen sida aan u soo booday ee aan u qayliyey ee aan u codsaday faahfaahinta la xidhiidha waxa Muqdisho laga doonayo waxaan isir weydiiyey malaha waa degdegtay anigii baa khajilay oo dib u fadhiistay waxaan fahmi la'ahay waxa ay ii geynayaan Muqdisho ma maxkamad bay isaarayaan ma xabsi kale oo Muqdisho ku yaala ay ii geynayaan waxa soo dhanba u baahan in laga jawaabo balse waxa aan u waayay jawaabo waafi ah oo iqaniya waxaan falanqeeyay xaaladda oo waxaan ka soo qaatay inaanay jirin meelo badan oo aan booqan karo anigoo maxbuus dagaal ah inkasta oo aan ka fikiray suurtagalnimada maxkamadayntayda oo aan u badinayay in maxkamad la isaarayo haddana maan rumaysanayn in siyaasadda madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ay gaari doonto dhexdhexaadnimo heerkoodu yahay in xaaladayda wada hadal laga galo haddana waxa aan is idhi malaha waa khiyaano ay wado dowladda Soomaaliya oo waxa ay doonayaan in ay maalmo kooban Muqdisho kugu hayaan oo ay indhaha dunida ku tusaan in xalkaagu wanaagsan yahay taasi dambe ayaanan u badiyey malahaygan waxaan ku degdegay in aan sii wado su'aalahayga
ma helin jawaabo intaas ka badan oo qanciyey xiisihii aan u qabay ujeeddada dhabta ah ee ninkan isna ka socda ICRC kaasi oo ahaa ninka isagu yidhi kelmadda ah muqdisho ayaan tegaynaa. waxaan xasuustaa in uu yidhi waxaasi oo aanan fahmin. waxa uu haddana igu yidhi waxaad cabbi doontaa biyo macaan maanta. waa maxay jahannamada uu sheegayo? biyo macaan ah. waxaan weydiiyey sharaxaad in uu iga siiyo maadaama aan halkanba biyo ku haysto oo aanan biyo kale xiise u qabin. waxauu iigu yidhi biyaha macaan miyaanad fahmin? biyo macaan oo maxay ah ayaan ku idhi aniga oo su-aasha ku celiyey. waxaan weydiiyey in uu ula jeedo cabitaanada fudud ama wax la mid ah, wuxuuna ku adkaystay isla sidaas. hore waxa aan u ogaa in xabsiga laanta buur biyaha aanu ka helnaa ay ahaayeen biyo culus oo aan u maleeyey in cusbada iyo macdanaha kale ku badan yihiin. waxaan taasi ka dareemi jiray marka aan wax maydhayno saabuunta ayay beddeli jireen. xataa timaha haddii aanu saabuunta marino timahayagu waxay noqon jireen kuwo cuf ah oo ishaysta oo ay saamaysay xaaladda biyaha adag iyo saabuunta isla falgalay. waxa kale oo dhacday markii aan xabsiga ku cusbaa in aan ku bukooday biyaha laanta buur aan ka cabbay oo aan aad u xanuunsaday. iminkase aan iskala qabsaday oo calooshaydu la qabsatay. sababtu waa markii aan Itoobiya joogayba biyaha waxa ay ahaayeen kuwan oo kale, biyo cusbadu ku badan tahay. waxba yaanan sheekadan idinku sii dheerayne waxa ay ugu dambayn ii sheegeen in la ii kaxayn doono maanta dhinaca iyo magaalada Muqdisho. muqdisho waa caasimadda Soomaaliya, waanad ila wada garanaysaan. waxay igu yidhaahdeen tag qolkaagii oo soo diyaargarow. waxaan galay xaalad diyaargarow kooban ah. waxaana qolkaygii ii sii kaxeeyey mid ka mid ah ilaalada xabsiga. kadibna waan soo baxay oo waxa aan soo joogsaday albaabka xafiiskii aanu ku shiraynay. waxaana lagu qaaday gaadhi jiib ah. darawal ayaa gaadhiga waday. xagga dambena aniga iyo dhowr askari oo ilaalo ah ayaa saarnayn. gaadhi kalena waxa saarnaa madax kale oo ka mid ahaa kuwii shirkana la galay. markan maradii madoobeyd ee daboolka ahayd madaxa oo dhan la igagama daboolin. gawaadhidii ayaa dhaqaaqday oo xabsiga iridiisa weyn ayaana laga furay. sidaasi ayaanan xabsigii laanta buur kaga soo baxnay. niyaddaydu waxa ay ahayd mid aad u kacsan. waxa aan wada dareemayey farxad iyo naxdin wada socota. ma iga rumaysanaysaa in ay jiraan wakhtiyada qaarkood farxad iyo naxdin isbarbar socda? mararka qaar waxaan is idhaahdaa malaha maanta waxa aad ku jirtaa maalintii kuugu dambaysay xabsigan laanta buur. haddana waxa aan is idhaa malaha Muqdisho waxa lagu geynayaa in lagu saaro maxkamad, ugu dambaynna waxa lagugu xukumayaa xukun dil ah. maxaa ka xun adiga oo sanado badan xidhnaa oo haddana dil toogasho ama daldalaad ah lagugu xukumo? taasi ayaan aad uga walaacsanaa. markii aanu qabsannay jidkii isku xidhayey deegaankii laanta buur ilaa magaalada Muqdisho, waxa uu taliyihii nala socday iga codsaday in aan hadlo. waxa aan doorbidayey in aan iska aamusnaado. iyagu waa ay sheekaysanayeen oo luqadda Ingiriisida ayay ku wada hadlayeen. askarta Soomaalida iyo kuwa kalena af Soomaali ayay ku wada hadlayeen waqtiyada qaarkood, iyadoo inta badan ilaalada askarta ahi ay ahaayeen kuwa iska aamusan. waxa aan u baahday in aan ka fikiro si aan u ogaado waxa aan filan karo. waxa aan ku idhi ma ii sheegi kartaan waxa i sugaya iyo safarkaygan Muqdisho waxa aad ila damacsan tihiin? fikrado waalan ayaa maskaxdayda ku soo ururay. waxaaban iska idhi oo aan niyeystay oo aan isweydiiyey ma laga yaabaa in aad toos ii geysaan gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo aad iga duulisaan oo aan dalkaygii dib ugu laabto? way wada qosleen, waanay aamuseen. wax jawaab ahna ima aanay siinin. anna waan iska aamusay oo kursiga gaadhiga ee aan fadhiyey ayaan dib ugu tiirsaday aniga oo xagga sare eegaya. waxa la yaab igu ahaa waxan ay Muqdisho ii geynayaan. waxaan isweydiinayey haddii la gaadhay wakhti lagu sii daayo miyaanay ahayn in aad ogaato oo diyaargarowdo oo maskax ahaan iyo niyad ahaanba aad u diyaargarowdo in aad noqonayso mid la fasaxay. sidan degdega ah iyo wax u sheegid la'aanta ayaan ka walaacsanaa. marba marka ka dambaysa waxaanu ku sii dhowaanaynaa dhinaca iyo magaalada Muqdisho. maalintii aan halkan soo maray ee xabsiga laanta buur la ii keenayey ma aqaano sida xaalku ahaa. sababtu waxay ahayd in aan madaxa ka daboolnaa oo aanan waxba arkaynin. iminkase wax walba waan arkayaa oo waxaan la dhacsanahay jidka aanu sii maraynaa sida uu u egyahay. jawiga deegaanka iyo dhulkan aanu marayno ayaan daawanayaa. waxaa meel sheed ah nooga soo muuqatay muddo dheer oo aanu soo soconnay kadib dhismayaal
iyo biro dhaadheer oo aan u maleeyey kuwo isgaadhsiineed. waxaan meel fog ka arkay manaarado bir ah oo aad u dhaadheer. farxad ayaa jidhkayga oo dhan saaqday. riyadaydu ma rumoobi doontaa? gaadhigii ayaa hore u dhaqaaqay oo kolkii aan ku soo dhowaaday meeshii oo aanu kolba marba marka ka dambaysa u soo dhowaanno ayay farxaddaydu sii badanaysay. waxaan ku qancay in ay u eg yihiin kuwa idaacadaha iyo telefishinada, laakiin ma garanayo sababta. meeshani maxay tahay ayaan isweydiinayay. mana jirin in kooxda aanu gaadhiga wada saarannahay ay wada hadlayeen. qof waliba waa iska aamusnaa. malahayga waxaan ahaa qofka maskaxdiisu u shaqaynayso sida ugu badan, ayna isweydiinayso su'aalaha ugu badan. waxaan isku dayey in aan ka ilaaliyo sarkaalka nawata in uu dareemo xamaasadayda iyo sida aan u hiyi kacsanahay. annaga oo sidii u soconna oo aad u faraxsan ayaannu halkii ka laabnay goolad wadda ah. gawaadhidii ayaa sidii u sii socotay ilaa ay si deggan iyaga oo u socda u leexdeen meel ballaadhan oo cidlo ah oo uu ku hor yaallo dhisme. haddii aan isku dayo in aan xusuustayda si wanaagsan u qiimeeyo, waxa uu dhismahaasi ka koobnaa ilaa 2 dabaq sida aan u malaynayo. waxaana ka horreeyey barxad weyn oo bannaan. maxay halkaasi iigu hoggaaminayeen? waxaan baadhay gees walba si aan u raadiyo in yar oo calaamad rajo ah leh. shaki igagama jirin. waxay ahaayeen xafiisyo ka tirsan militariga Soomaaliya sida aan u maleeyey ama aan u badinayo, balse cidi iima aanay sheegin. waxaan ka fekeray shaqaalaha guud ee ciidanka Soomaaliya in ay yihiin kuwa iskale goobtan. maan helin saadaal kasta ama rajo kasta oo ii tilmaami karta xaaladani sida ay u socoto. waxa aan u badiyey in goobtani tahay goob ciidan. qaab dhismeedka meeshani waxa uu ku habboonaa xabsi ayaan isweydiiyey. markii aanu ku leexannay si goolad ah ama leexasho ah goobtii, waxaan ahayn kuwo istaagay oo gaadiidkii waa ay isdaba joogsadeen. meesha iigama muuqdaan wax dad ah oo badan oo bannaanka joogaa. waxaan si halacsaday in dhowr askari ay kala taagan yihiin goobo kala duwan oo goobtan ka mid ah. waxa aan u maleeyey in ay yihiin askar ilaalo ah. ilaa imika maan garan meeshani waxa ay tahay. waxaan si xaqiiqsaday in aanay ahayn goob rayid ah ama dad shacab ahi ay degan yihiin. waxaan gartay in ay 100% tahay goob dawladeed, ha noqoto xafiisyo kale ama ha noqoto saldhig ciidane. intaas ayaan isku qanciyey. muuqaalka goobtu waa muuqaal cajiib ah. barxad weyn, dhismo weyn oo 2 dabaq ah iyo wadooyin fiican oo si habaysan loo habeeyey. saaxiibayaal, qaybteennii 25aad ee maantuna halkaas haynoo joogto. insha allah qaybta xigta ee 26aad inta aan u gudbi doonno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.